iyadoo la fulinayo amarkii duqa magaalada Muqdisho ee gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir lagu amray inay furaan wadooyinka dhexmara xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir ee sida sharci darrada lagu dhistay ayaa maamulka degmada Waaberi waxa uu burburin ku sameeyay dhismayaal si sharci darrada looga dhistay wadooyinka dhexmara xaafadaha degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. goobaha la burburiyay ayaa isugu jira goobo ganacsi iyo dhismayaal la degan yahay kuwaas oo si sharci darrada wadooyin dadku ay maraan laga dhisay. gudoomiyaha degmada Waaberi oo horkacay howlgalkan ayaa la hadlay warbaahinta waxa uu faahfaahin ka bixiyay wadooyinka la furay iyo kuwa qorsheysan in dhawaan la furo. waxa uu digniin u diray dadka sida sharci darrada u dhistay wadooyinka la maro ee degmada Waaberi. maanta ilaahay waxaan u soo tagliyay inaan ka shaqeyno degmada Waaberi oo wadooyin badan furno ilaa hadda laba wadaan furnay. wadadan oo ka soo bilaabanayso UNICEF ka soo bilaabanayso ilaa dab ku dhacaysan furnay. wadadan kalena waa furnay oo maaja wada kale ka furnay. marka wadooyinka oo furayna inta dhiman dadka Waaberi waxa u sheegaynaa oo wadooyinka degan inay wadooyinka guuraan. qofkii wada degan waa laga furaa wadada. amarka gudoomiyaha gobolka Banaadir in wadooyinka la furo anagoo fulinayna wadooyinka dhan oo Waaberi waxaan rabnaa inaan furno si ay u noqdo beledka u noqdo beled nadiif ah, beled bulsho nabad iyo beled nadiif ah u noqdo. marka waxaan u sheegaynaa dadka Waaberi degan in ay baneeyaan wadooyinka ay degan yihiin. waana muhiim dadka in wadooyinka guuraan. waxaa kaloo muhiim ah xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam iimaanku waxa uu yiraahdaa imaamatu aan dariiq in laga qaado qashinka wadooyinka laga qaado. waxaa u maleynaa qofkii wada dhistay marka oo qaato dariiqa wada dhan gooy. wadada maanta anaga aan furnay burburkii ilaa hadda wax ma la isticmaaleen oo wax baawur ma isticmaaleen xitaa mooto ma isticmaaleen. dadku waa deganaayeen ilaa maanta oo soo taglay inaan ka furno wadooyinka loo dhiman oo furana insha Allah maalmaha soo socda. dadku Waaberi digniina la siiyay qofku uu yar waxa haystay bil uu haystay. ani maanta degmada imaado waxa wadooyinka la furaa amarka gudoomiyaha gobolka Banaadir inuu fulinayo wadooyinka waa la calaameeyay. dadka digniina la siiyay guri uu yar bil uu digniin haystay. marka dadku way soo dhaweeyeen waana rabeen in wadooyinka loo furo aad iyo aad u soo dhaweeyeen. arrin muhiim ah oo arkayeen in wadooyinka loo furo maadaama hadii dab kaco hadii ambulance ay soo gali karin dabdamis uu soo gali karin wadada. marka aad iyo aad u soo dhaweeyeen dadku waana rabeen in wadooyinka loo furo. dhawaan duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa amray gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir inay furaan wadooyinka sida sharci darrada lagu dhistay 30 sano ee la soo dhaafay kuwaasi oo muhiim u ah isku socodka caasimadda.